وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث 19 حديث كسقالي التمنات عن أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حديث كسقالي التمنات عن أبي العباس عباس أبيه سبا لغوريي مجعيسنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله ابن عباس أبي العباس بيكون يدي سوهد أبيه ودلي ويل كسن صدي. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة ويان ومدان عالم كودي ويان. نبيك أدعيه ويل يربوها حتى نبيك مركو غيريونا دوري توجر أفري توجر لشيغو دادي سبيهت، لكن العلم بدن علم جسيل الله يابي أنبوها مركا ابن عباس نبي قادر كيسي بعد لي وعليه عيان والمادير ويان. عباس ابن عبد المطلب أيا عبد الله دلي، نبي أنا عبد الله ابن عبد المطلب بعد لي. اللهم فقهه في الدين بويري، الله الدين تفهم سي مركوي القيمة بدن بوها سقو تونجرة أما سقال جرة. أيو مركا انتو نبي قاديد لفولي بحديث كمركا وحا ويان قيمة بدن ووركان أيو نبي uu sheegay waa tacaaliim ummadoo dhan la wada barayo, marka qiimiga badan weeyaan. shabaabta marka diinta sida loo baro isagoo yar weeyaan 10 jir ama 9 jir buu ahaa. ninka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Sayyid Umar buu wuxuu keenay jiray mararka qaarkii waxa weeyaan raggii reer Maka ama asxaabta culama waayeeladoodii buu dhaxgelin jiray isagoo ilmo yara. marka way ka qayliyeen oo yiraahdeen dhamaantanada caruur waa wada dhalnay oo keeni mayno, wiilka waxa odayaasha dhaxdoodii maxaa loo keenaya. markaas Umar ku yiri ninka wiilka taqaanaan weeyaan baa koorta ka yimid, waa nabiga adeerkiisii. ta kale maskax weynaan iyo cilmi badan buu Rabbi siiyay. barbuntu imtixaamayo suurada idaa jaa nasrullahi maxay tilmaamaysaa. raggi ugu waaweyn asxaabtu weydiiyay, qaba wax buu ku sheegay, waxbay suurada ay ku fasireen. markaas Sayyid Umar wuxuu ku wariyay ibn Abbas adna ra'yigooda aad qabtaa misraayay ka duwan say ku fasireen ku fasiri ma weeyaan ra'yi ka duwan oo fasir kale baan wata ilma yar weeyaan. maxaad ku fasirtay baa la yiri waxay taa tilmaamtay buu yiri idaa jaa nasrullahi wal fathu ajalu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, nabiga ajashiisii bay tilmaamtay. waa wasida dhowr iyo 180 casho baa la sheegaa ayuba nabiga noolaa suurada markay soo degatay ka gadal waa geeriyooday sallallahu alayhi wasallam. Umar wuxuu ra'yi aan ka ahayn annagu lama qabin, ra'yiga baan wataa buu Umar caalim buu ahaa. marka wiilka wayaan qiimiga badan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma قال عبد الله بن عباس wuxuu yiri kuntu waxaan ahaa
khalfa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka alle gadaashiisi gaadiid baan la fuulay weyaan, gaadiid baan nabiga la saarnaa. asna hor buu kaga fadhiyaana gadaal baan kaga fadhiyey. yowman maalin maalmaha ka mida, maalin baa nabiga fangal u ahaa ee gaadiid baan la saarnaa. faqaala markaasuu igu yidhi, waa 10 jir mise waa 9 jir cabdullaahi darhadlaaye, yaa ghulaamu wiil yahow, innii aniga ee rasuulka ah ucallimuka waa ku barayaa kalimaatin ereyooyin, kalimaad baan doonayaa inaan ku baro. si gaar ahaan ba isagii loo barayo, laakiin si guud ahaan ummadoo dhan wey, inagoo dhan weeyaan. ereyooyin baan ku barayaa, ereyaashiiba hadda la barayaa. ixfad illaaha, ilaah ilaali. yaxfadka natiijadu waa maxay? aduu rabbi ku ilaalin. qaabkee rabbi loo ilaaliyaa? ilaas qaabkeed u ilaalin. qaabka loo ilaalinayo waxa way bimtithaali alawaamiri wajtinaabi nawaahi, ifcal walaa tafcal, unbaa rabbi lagu ilaaliyaa. addoon baa tahay oo amar inaad qaadataa lagaa rabo, kana yeelood yeeshood meel mariso, kana ka joogo ha u dhowaan lagu yidhi aad ka fogaato. marka sidaad yeesho rabbi isagana wuu ku ilaalin. shiddo weliba, dhibaato weliba, cudur weliba, xumo weliba, adduun iyo aakhiro rabbi ku badbaadinaya awaamirta markaas aad u qaadato. ixfad illaaha yaxfadka wala yansuranna allahu man yansurhu waya. markaad rabbi u gargaarto, diintiisa aad u gargaarto, ayuu rabbi kuu gargaaraya. yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum, haddaad ilaah u gargaartaan diintiisii baa loo gargaaraya. yansurka ilaa markaa buusna kuu gargaaraya. ixfad illaaha ilaa xifdi, ilaa ilaali, awaamirtaa la xifdinaya. ifcal walaa tafcal wayaan. tajidhu ilaa waad helaysaa tujaahaka, hortaadii baad ka helaysaa. adduunyadaada ilaa aakhiradaadoo dhan buu rabbi kuu wanaajinaya. markaad rabbi asaad u ilaaliso hortaadii, dan weliba aad doonto yaa allah markaad tidhaahdo waxa way waa lagu maqlayaa. dhibaato weliba, laakiin markaad intaad ladan tahay, dhalinyarnimo, da-du ay yar tahay, caafimaad iyo ladnaan sii tumato, dhibaato markay timaado dhigba lagu dhigimay, waanu tilmaami doonaa. ixfad illaaha ilaa xifdiyo, tajidhu ilaa waad helaysaa tujaahaka, hortaadii baad ka heli. waxaagoo dhan buu rabbi baa kuu wanaajinaya. idaa sa'alta, haddaad wax weydiisanaysidna fas'al illaaha, haddaad rabto inaad qof wax weydiisato fas'al illaaha, ilaah subxaanahu wa tacaala keligiisii wax weydiiso. tacaaliin waya, caqiidada laiska dhisaya, ilmo yar weeyaan. qof kale ha gaardaymoonin, dhan kale ha fiirin. was'alu llaha min fadlih, man lam yas'al illaaha buu nabiga yidhi, qofka ilaah wax weydiisan ilaah waaba u caroonaya. insaanku waa ka duwan yahay. qofka markaad wax weydiisato carooda, rabbina waxa weyaan weydin la-aantu ayuu ku caroodaa. laakiin insaanka waxa weyaan 2 jeer kale haddaad u noqnoqoto waxaan lacag ahayn 20 shilin maanta ka qaada, beri ka qaada, howl la-aan baa tahay buu ku leeyahay. maalinta saddexaad dan baad iga dhigatay oo dan yeelo. waxa idaa sa'alta markaa fas'al illah, laa tas'alanna baniya aadama xaajatan fas'al alladii abwaabuhu laa yuxjabu. insaanka waxba ha weydiisanno allahan ilbaabyadiisi aan la xiraynin inay wax weydiiso. sababta allahu yaqdab in tarakta su'aalah, wa banu aadamna waxa way xiina yus'al ayuu markaa carooda kaga duwan yahay. asxaabta qaar baa ballan nabiga sidaa kula galayo, abubakar baa ka mid ahaa in qofba wax la weydiin. xitaa waxay dhici jirtay baa layidhi isagoo gaadiidkiisii saaran, usha uu ku hogaaminayo ama garbaashka uu ku hogaaminayo gaadiidka, intuu dhulka ka dhaco uusan qofna waran ee iisoo dhiib keli. ballanqaadkay nabiga ay la galeen qofaan allahin bay wax la weydiin, inuu isaga soo degta maahaana weydiisto uu qaato wixiisi. idaa sa'alta, haddaad wax weydiisanaysid fas'al illaaha, ilaa wax weydiiso. waida stacanta, haddaad kaalmo iyo gargaar iyo musaacadaad rabtana fastacin billaahi, ilaa gargaar weydiiso. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. waclam, waxaad ogaataa ana alummata ummadoo dhan low ijtamacad hadday kulmaan calaa an yanfacuuka, inay wax kugu taraan bishayin haba yaraato, shay inay wax kugu taraan, lam yanfacuuka kuguma tari karaan ilaa bishayin shay maahaane qad katabahu llaahu, rabbi baa qoray oo laka adiga azaliga lagugu qoray. kitaabu lmaqaadiiri lawxu lmaxfuudi, wax kugu qornaa maahaane wax kale kuma siin karaan.
yaqiin way caqiida laga hadlaya la isbaraya ummadoo dhan haday kulmaan inay wax ku taraan oo galaas biyo ay ku siiyaan kuma siin karaan inuu rabbi hore ku qoray ma ahaane ila rumeeyaa la rabaa waa arkaan al-iimaan waya wa in ijtama'u waxa lamida haday kulmaan ummadoo dhan ala ay yadruka inay kugu dhibaan bishay shay taqsiqu dul saareen ka ridaan ama ka dajiya lam yadruka illa bishay qad katabahu Allah alayka dhibaato ila awal ku qoray maqaadirta waxa la yiraahdaa konton kun sano ka daaweyn tahay maalinta wixii la qoray maanta seegi maysi gefi maysi hadduu khayr yahayna waad helay adoon isdhibin haday shar tahayna la budda ku soo gaaraysa wixii ku qoran markaas wuxuu ku yiri rufi'atil aqlam qalam yaashi nun wal qalam wama yasturun wala kor qaaday dib dambe wax loo qorayaan jiri waxa maanta ahaanay ila qiyaamo laga tago wuxuu dhan way qorayeen qoraalka qoran baa la maraya dib dambe wax loo qori maayo wajaffat suhuf warqadihi la qorayna way engageen wax la tirayaan jirin wixii maqaadiir waa la marsiyay waxa way qalamihiina waa la kor yeelay warqadihiina way engageen tirmidhi baa wariyay tirmidhi wuxuu yiri xadiidku waa xasan waana saxiix riwaayo kale marka xadiiska dhameystirkiisi laakiin aan tirmidhi ahayn raga wariyay raga kale ruwaada kale wax warisa wa fi riwaaya kale غير الترمذي ان ترمذي ahayn aan tirmidhi warinin dad kale baa wariyay waxa ku qoran riwaayada ihfadillah qafiya ibn Abbas baa la hadlayay ila hifdi awaamirtiisa qaado wuxuu ka reebay ka har tajidhu wad helaysa amaamaka horta tujaahaka ya amaamaka lafdigu haba kala dibnaado macnuhu mid weeyaan ta'arraf aqoonso ila Allah ila garo fi raqa ladnaanta markaad ku jirto markaad amni ku jirto amniga ila garo ma markay dhibaato iyo balay timaada markaa may masaajidada la galgalo marka ila aqoonso koow dhalinyaro markaa tahay ila garo markaad waayeel noqoto lugiiba ku dhaqaaqaynin lama rabo shaabun nasha fi ibadati Allah jalla wa ala la amaanay waxa way ladnaanta iyo dheriga caafimaadka markaad qabto ila garo marka sida la yeelo natiijadu waa maxay yaarifka fi shidda marka dhibaato gasho rabbi ku garanaya laakiin marka ladantahay dhalinyarnimada adeego caafimaadka adeego amniga adeego intuu isbedelaya marka yaa Allah wadaadi dhigba loo dhigi maayo laakiin waxa way marka ladnaanta ku fiicnaato dhibaato markay timaado yaa Allah marka tiraado waa lagu maqlaaya marka goorta adeegan baa lagu leeyahay ladnaanta markaad ku jirto amni uu jiro dhalinyarnimo caafimaad ee waxa weeye dhereg iyo barwaaqo la haysto markay baahi timaado kale in la qeeqayliya maaha wa'lam waxaad kale aad ogaata annama akhda'aka wixii ku gefay lam yakun ma ahanin liyusibaka midku asiiba aqida iimaan baa la isbaraya maaha waxa weeye haddaan halkaan tagi lahaa usha halka lagu riday baa igu dhici lahayd awalba kuma qorneen hadduu ku qornaan lahaa marna ma gefeen aqida wayan qof waliba in rumeeyo haday sidaa noqoto wax waliba ku fududaanayo culays oo dhanba kuma haynay waxa ilaaha ku qoray konto ku sanay ka daaweynaaye awalba way ku soo gaarayaan wixii lagu qorina waxa way ku gaari maayaan wama asabakum min musibatin ma'ayad min qabli an nabraha bayhat ayada waxa la waxaydin asiiba waanu qornayo nafta intaanan abuurin horteedii konton kun sano bay ka daaweyntahay min qabli an nabraha nafta intaanan abuurin horteedii baa waxa la qadiray qul la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana ila wixii noo qoray maana wax kale ba naasiibi maayaan aynama takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi buruj mushayyada ma sha doonta batago wixii ila ku qoray halka bay kugu iimaanayaan marka waxaad ogaataa annama akhdaka wixii ku gefay awalba lam yakun liyusibaka midku asiiba ma noqon dadaal baan sameeyay orod baan sameeyay qarban ka booli sida baan kaga badbaaday ma jirto awal baan ku qorneen wama asabaka wixii kugu dhacayna lam yakun ma ahanin liyukhtiaka midku gefa ana xalay halka tagay maana dan tagilen iguma dhacin may qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alayhimul qatl ila madaji'in munafiqiinta waxay dhijay walaalahooda halka lagu soo dilay hadayna agjoogi lahaayeen oo meesha ay tagay mayaga dhiman lahaa
dhibaatada ma iyaga heli lahaa. markaasuu rabbi wuxuu ku yidhi low kuntum fii buyuutikum haddaad caqaladiina aad joogtaan weligii baan ka soo bixin labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim qofka goobta lagu gababari lahaa ee lagu gowrici lahaa ama lagu dili lahaa lugtiisa isagaa ku tagaya. waa masalata alqada walqadar wixii qoranoo qofka iskaba reebi kara ile maamul baa kugu socdo ilaa baa ku maamulay. intaa qofka markuu rumaysan yahay welwel badan dhibaato badan kan hadaa yeelin intuba ma jiraan. wixii kuu qora godkaa doontaba galo waxa way kugu imaanaya. haddayan kuu qorneena waxa weeyaan mahaaliigta meesha ugu daranay surid haddaad doonto kugu dhici maayaan. awal baan kuu qorneen marka haddaan sidaa yeeli lahaa ee geedka igu soo socday anaa sidaa iska yiri maahaane haddaan dhigile igu dhici lahaa awal buu kuu qorneen. hadduu kuu qornaan lahaa marna kuma gedfeen. waclam waxaad ogaataa ana nasra gargaarka haddaad doonta in lagu gargaaro maca sabri bay la socotaa dulqaad in la yeesho. haddaan dulqaad ma jirin gargaarna ma jirto gobanimona ma jirto wanaag dhan baan jirin insaankao dhan baan jirayn. dulqaad ile waa la isimtixaamaya dhibaato iyo musiibo walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi wathamaraat wabashir الصaabiriin aladiina idaa asaabathum musiiba qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun. waa laisjaribaya waxa weeyaan caafimaadkaagii amnigaagii dhan welibaa laisu jaribaya. waxaa kale qofka laga jaribaa diintiisii dhaaca lagugu jaribaya macsiya naftaa jecel intuba sabar baa la doonaya. qofka markuu sabro buu markaa guulaysanaya. wallahu maca asaabiriin ayaduhuna aad bay u badan darsi dhan buu noqon karaya ka badan sabarka kale marka laga hadlo. wa ana alfaraja farajkuna maca alkarbi buu ahaaday shida la qabitaankeedii kurbadu markay badato ishtadii asmatun tanfariji buu nabiga dhihi jiray. shidoy ee sii bado ee sii darno wadaaba dilaacmi doona dilaacaagii baa dhow. kurbadu markay badato dhibaatadu ay badato la dulqaato sabarna lagu daro farajka markaa dhow. wa ana maca alcusri culayska waxaa wehliya yusran fudayd baa wehliya culayskeli daa'imi maayo. sayajcalu allahu bacda cusrin yusran suurat adalaaq qur-aanku rabbi ku sheegay haddii la sabroo la dulqaato culayska ka gadaal rabbi yusri buu keenaya. sidaa darteedii suubanu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam suurata alam nashrix aayadda markuu aqriyay suuradda fa ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusran lan yagliba waxa weeyaan cusrun yusrayn kama adkaan karo nabiga yidhi cusri hal culays laba fudud. aayadda markaad eegto cusrigana 2 jeer buu yimid yusrigana sidoo kale 2 jeer laakiin cusriga hal keli baa lagu sheegay yusrigana waxaa lagu sheegay 2 kal. markaad eegto aayadaha cusri iyo yusri cusrigu wuxuu ku yimid macrifuu ku yimid yusrigana naxwaha markaad eegto yusrigana nakiruu ku yimid macrifo iyo nakiro. waxaa la yidhahdaa macrifo hadday soo noqnoqoto mar keli un bay xisaaban tahay. ama nakira alif iyo laam waxaa laga reebay baa nakira la yidhahdaa. alif iyo laamna marka lagu daro waa macrifa. cusrigu waa ka macal cusri yusranna waa nakiro alif iyo laam ma wadato. nakira haddii lasoo celceliyo mar weliba mar bay xisaabsan tahay. saa darteedii buu nabiga yidhi 2 fudud hal culays kama adkaan karo. subanu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay hadduu cusri yimaado oo godka meel uu ka galo cusri baa dabaymaan lahaa ee godku la gali lahaa markaasuu ka saari lahaa. dulqaad keli un baa la rabaa ma daa'imaayo. sayajcalu allahu bacda cusri yusra laakiin la dulqaato wayaan. haddaan sabr jirin qofku uu qadaya wuxuu helayaan jirin laakiin sabr iyo dulqaad culays waliba yimaadaan ilaah un baa qaadaya way dhammaanayaan. sabarka muhiima. wa ina maca alcusri culayskana waxaa lala qabaa yusran fudaydka wuxuu ahaa xadiidka 8-19 wallahu aclam. آمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتابك وحن قداء سجرنا 40 النووي كتابك إمام النووي سوكيني 40 وكم مقعابي ayaanu weli wadnaa waxaanu maraynaa xadiiskiisii 20aad kii 19aad baa noogu dambeeyay 10kaanu ku soo qaadanay. alxadiiث 20
عن ابن مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري عن ابن مسعود أي اللقوري ابن مسعود لكن ابن مسعود كي أو عبد الله ابن مسعود معها نيكا كان هو عقبة ابن عمرو الأنصاري أريد مدينة أنصار رسول الأريد مدينة ويا البدري رقى بدر الدقناء اللون سبيي رضي الله عنه ربي أكرر للنقضاء عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري قال عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي وحيري إن مما شيء وحا كمدا إن مما شيء وحا كمدا أدرك الناس ددك أي هليلين من كلام النبوة النبيال هذا الكودين وكمد يا النبيال شاسو الأولى أيه الرئيسي لقب الله آدم شيث إدريس نوح نبيال شوردن warka waxa weeyaan lagala kulmay ummadahooda ka soo guuriyeen waxa kamida idaa lam tastahi qafyahu hadadan xishoonaynin fasna' ma shi'ta waxa doonta samay waxa weeyaan amrul ibaaha ma aha hadadan xishoodba qabin waxa doonta samay macnaha waxa loo wado anaa waya waxa kugu dhici doona baad arki doona weeyaan فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بآيات حديث كل مدياي قفكي دونا إلى حرم يقفكي دونا هقالوا أمركو أمر مباح ما كانوا دونا قال لي ما أنه هسك قالوا ميا الله أركي دونا ويا وحكو قدعو دون نقو بوايا لنقفض عن ربطة معرور تادي فالحن بوكو جرا واتفي عنتا يدا قمانو كسي سعاد ليدهاي سقيبا كتاكاي سمايبات اللي سقي سمين ما إلا قول إني دبجوك توقي هاي falkaagu fiican yahay oo ku sii soco marka warka waa sida marka waxa la yiraahdaa qofka xishood darada wax ku sameeyo duruubtan la dhaafaynin bay kamid tahay subhanahu wa alayhi salatu wa sallam wuxuu noo sheegay kullukum mu'afan sadawada dhantii waa la idin cafinaya illa al mujaahirin maahane kuwa dambiga la jaara xishood la'aanta wax ku sameeyo kuwa dambigoodi la dhaafi maayo kuwa banaamaadka la taagtaagan حمودي خمرة هالك كوعب ولا كعاكفة وحويا بالعان أجنبي وقعما كهيسا وحو أبيالا يمركان أنجرين حشو الدرويا تذكى وحويا الدنبي قود الأردافي ما يوصف بنوري صلى الله عليه وسلم مركا حشوتك ومن الإيمان إيمانك وحويا دوري تضواتا قيبوت بصوبنوك يري أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان بصوبانه صلى الله عليه وسلم حشوتك وقيب إيمانك كمده قفك دوسا حشوت قبل إيمانك تقاي إيمان لا ينول نقضو صورة قال نبينا عليه الصلاة والسلام قف حشوت بدن حتى قبر وحا ويان في خدري أبوك حشوت بدنا قبلها ولواقع هذا اللي تقاي وحا كبدها حشودك اللي يقيني حشودك وديبو نبي كقدرنا حق حشودك نمبو أركي اللوانين حشودك دنكي لقلاها الله مركز وحو كوريو دايو نينك حشودك بدن واد محاتا واد اسباب بيسي حشود بات كجرتا مركز صوبان وحو كوريو داعو اسكدايو فإن الحياء من الإيمان وي الحياء لا يأتي إلا بخير وي دواتبك إيمان وي قفك دو حشود ليه حشود كل بكيني ماي waxaa laga sariiganay laakiin xaq yuusan noqon markuu xaq yahay ama cilmi barasho iyadu xishood ma laha waa xishooday cilmigii baan ka tagay daaba iqaaday hadda waqti wax la bartama lama joogayo may ninka waxba baran maayo marka xishood looma baan laakiin wixii muharramaada wixii xuna waxa soo dhan waa in laga xishoodaa inna mimma shay waxa kamida adraka an-naas dadku bay haleeleen من كلام النبوة النبي هذا الكي الأولى نبياشا سوري هذا الكود وحا لغا هلي maxaa ka mid yahay idaa lam tastaxiqo fiihi wadaadan xishoonaynin
fasnac samay maa shi'ta waxaad doonto ee waxa kugu dhici doona adaa arki doona weyaan. bukhaari baa xadiiskaa wariyey. xadiidka 21 can abi camrin waqiila abi camrata sufyaana bnu cabdillaahi radia allahu canhu qaal qultu ya rasuula allah qul lii fi lislaami qawla laa as'alu canhu axada gayraka qaala qul aamantu biاllahi huma istaqim rawaahu muslim. xadiidka 21 waxaa laga wariyey can abi camrin waqiila waxaa la yidhaha abi camri maehe abi camrata ama abi camrin dhe ama abi camrata dhe magiciisuna yahay sufyaan ibni cabdillaahi radia allaahu canhu qaal sufyaan ibnu cabdillaahi wuxuu yidhi qultu nabiga ayaan ku yidhi yaa rasuula allaahi rasuul allow qul lii waxaad ii tiraahdaad ii sheegtaa fi lislaami fii umuuri lislaami islaamka umuurtiisoo faraha badan waxaad igaga sheegtaa qowlan hadal ii sheeg hadalkaasoo laa as'alu aanan weydiinaynin canhu hadalkaa xaggiisa axadan qof hayraka aan adiga ahayn hadal tafsiir kale aan u baahnaanaynin iska cad ii sheego dib dambena aanan weydi qof kale aanan u tegaynin tafsiirkiisa waxaan ugu baahanaynin hadal markaa duubduubnimo ii sheego aniga iyo anfaca aan qof kaleba hadal ka raadinaynin. qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sufyaan ibni cabdillaahi radia allaahu canhu uu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa aamantu waa rumeeyey billaahi allaan rumeeyey. taa horta waa in lagaa helaa laa ilaaha ila allah tawxiidkii weyaan. uma ka gadaal istaqim toosnow cala shariicati ifcal walaa tafcal ku toosnow intaa keli weyaan arrinkaan kuu dardaarmaya intaa weyaan laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah istiqaama cala diini ha lagaa helo labada un baana janno lagu helaa. ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. istiqaamo waxaa la yidhahdaa khayrun min alfi karaama kun karaamo lagu siiyo waxaa ka khayr badan istiqaamo lagaa helo diinta lagu toosnaado. kun karaamo qofka isagoo duulaya isagoo aan arkay waxaa ka khayr badan istiqaama diinta lagu toosnaado. nabiga calayhi salaatu wasalaam amar baa la siiyeyoo istiqaamuhu ma sahlana fastaqim kamaa umirta baa lagu yidhi sida laguu amrayo u toosnow. arrin culays badan bay ku noqotay. abubakar baa wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi waad cirowday inkastoo nabigu uusan ciro badneen 12 weyaan garkiisi iyo madaxiisii marka laysu tiriyo 63 jirna waa ku dhintay 17 bay sheegaan qaarkoodii intuu ciro nabiga uu lahaa. markaasaa waxaa la yidhi ciraa ku bowday oo waad cirowday cirana laguguma ogeen. shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa buu suubanu yidhi sala allahu calayh wasalam suuratu huud baa cirada iga keentay. suuratu huud waxaa ku jirto fastaqim kamaa umirta sida laguu amray u toosnow. hay-adda culayskeedii baa cirada iga soo daadisay buu suubanu yidhi sala allahu calayh wasalam. marka istiqaama cala diin khayrun min alfi karaama ee sharciga lagu toosnaado ifcal walaa tafcal waxa weeyaan la meelmaryo kana yeel kana ha yeelin arrin culays weeyaan qofkii allah u sahlay baa u fudud. xadiiska waxaa wariyey imaamu muslim. ninka la yidhaahdo sufyaan ibni cabdillaahi wuxuu yidhi qultu nabiga ayaan ku yidhi yaa rasuula allahi rasuul allow qul lii waxaad ii tiraahdaa aad ii sheegtaa fi lislaami fii umuuri lislaam islaamka umuurtiisi waxaad igaga sheegtaa qowlan hadal ii sheeg hadalkaasoo laa as'alu aanan weydiinaynin canhu hadalkaa xaggiisii axadan qof hayraka aan adiga ahayn keligaaga inaan ku weydiiyo tafsiir kaleba u baahnaan doonin. qaala wuxuu nabiga ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa sufyaanow aamantu waa rumeeyey bilaahi allaan rumeeyey kowdhe hortaha lagaa helo uma ka gadal istaqim toosnow ee diinta ku toosnow. muslim baa xadiiskaa wariyey. xadiidka 22 can abi cabdillaahi jaabir ibni cabdillaahi alansaariyi radia allaahu canhumaa ana rajulan sa'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama faqaal ara'ayta إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة
قال نعم رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى الحلال فعلته معتقدا حله. عن أبي عبد الله أبيه سوى لقوريي مقعيسنا جابر ابن عبد الله الأنصاري. جابر يا عبد الله ولا وصحابي قيمي بدن. جابر وحو كمدي هاي رجع الله يقيني ومكثرين ترجع حديث سبديسيو تضوي انت هم بالله شجاع فركوتريس كاها كمران كأحاديث لقوريي بكمدها. نينك وحى ليري أبيه سين ويلبوحو كايسي جابر عبد الله. جابر بويل كايسي سقال قبلود باوهلي ليسي وانتو قور سدي النبي علامة قور وكوار كيبوحو كوير هيا ما قور ستي واتر وحو قور سدي دانتا مركا قروب وقور سديو انو مركا ولالي وكو كورسدو ايو هيسو. نينكا جابر ليرادو مكثرين تنا كمدا. أبيس عبد الله الأنصاري وحال لقود لي رقي دقالك وحود لقود لي بكمدها. رقالك كودي ولي مسلمين تأدي شيء قف بانا اللود لي كعرض انت لنكود اللو ملايي ولا الدليال كون باللقود لي مسلمين تسقوا لجابر وأبيك من ديدي بالرأسية لكن قف بكل انت يقصد موسن اهل. سبحانه عليه الصلاة والسلام مركو جابرو بشارين يوحو كويري رقي أحد لغو دلي وردن سدوب دوبهان بو وربي والله الله. لكن آباهاقي قارهان بو الله الله ولي كفاحا كوجي وجي وربي والله الله. آباهاقي سيقارهان با الله الله وح الله وحو دونا للدورة ماذي وحا دون تدورو والغسينا يا مركاسو آباهاقي وحو يري يا ربي وحان ربا إن الدنيا لا إيه عليه مر لواد عن دقالك قالوا هدنا اللي يدلو مر لواد مر صدقات لا توجر سيدة هذه اللي أوجي قف دنتي وآخرتك أو وحى ويا نرول دم بالثمانين أي مجر ومر لوادين ونولادو إلا قفك شهيد كما هاني قفك شهيد كوحو 80 أي بقول جريرة درتين ودنتو كرامة وأركا يأوجد كرامة الله سين أي وأركو يا ربي ملك يجي وهدنا عن دنتو لكن يذهب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الدون لقتك ودي بلوغ نقول معي وحكى لما يسابه لرجابر وتابع الميسان. الدون لقتك اللقوع على المايه تاو كتاب كي سوى الله ويقف دنتي واتقيو تبدأ بهدو نقول معي ورك لما يسا دنتي دي وانت أبو جري دنتي وينت نك الله وضع صحابي وقيمي أبدا ويندك الله المامي. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما جابر وحو يري أن رجلا سأل وحو سؤالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحاب تكمدة أي أنتو يمدوا رسولك سؤال ويديي فقال ننك وحو يري أرأيت رسول الله وحد إيقاقور أنتاد إيشاكتا إذا صليت المكتوبات شنت صلاة فرضك الله يقام مكتوبات ليلة صلاة الظهور عصر المغرب عشو صلاة الصبح صلاة هدانتو كذو وصمت رمضان بشهر رمضان صومو وأحللت الحلال وحولي بو حلالا حلال صدوم بنيستو وحرمت الحرام وحي اللي إيقا حرمي وحراما نفتك حرمون اسك حرمو ولم أزد على ذلك شيء. انت أن وحبك ليبا كدرين انت كلي صلاة أن دكتوس أن صومو وحي حلال الله وحا ويا أن بريستو حلال لما نقول رقمو وحي حرامنا أن كفو قادو انت كلي عدان سمعيو أدخل الجنة مقلايا جنة مقلي دونا. قال سبحانه عليه الصلاة والسلام وحكول النعمها وادقليسا سيد الله فضودية ويا جنة واتبدا ما بشغبدا وما بانو شنت صلاة قدو وحي كلا دي زكاة كوكو واجبتهم بدبحنا دي كوكو واجب ماذا بحناي حجكنا والله ولله على الناس حج البيت مددكو دنبا مي من استطاع إليه سبيلا قفكي كري كرويا markaas wuxuu yiri inta hadaan sameeyo janno ma galaya nabi alayhi salatu wasallam wuxuu ku yiri nacamha wad galaysa xadiiska waxa wariyay imaam muslim wa macna haramtu al-haram wa maxay ee haram taan iska xarimo imaam nabi ba ku fasiray ijtanabtuhu an ka dheeraada way haram taan ka fogaado bil kulliyan ma nahaytukum anhu fajtanibuhu dubduban kam ila anti ma ahan kariyo sida umba waxiga
wixii laga reebayo qadcan wad ka tagaysaa wa macna alxalaalana waxa weeyaan wa macna ahlaltu alhalal soomeen facaltu an sameeyo mu'taqidan xaal anigoo i'tiqaadinayo waxa xillahu inay xalaal yihiin xalaashan u sameeyo anoo mana i'tiqaadinayo qalbiga ku haya xalaalnimadiisi wallahu a'lam. alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولي وحان قداء وسجرنا كتاب كيكم مقعاوا الأربعين النووية للإمام النووي كتاب كي لها waxaanu maraynaa casharka naga ugu dambeeyay xadiidkii 22aad xadiidka 23aad baanu maraynaa عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. حديثك وحا لغا وريي عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال أبي مالك وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka alle wuxuu yidhi naxariis iyo nabadgelyo allah ku badiyo at-tuhuur baada haddii la shido may haddii la godo waa wasaqaadka naftirkiisii ama marka la kordhobo waxa lagu wasaqaato baa la yiraahdaa ee lagu daahir qaato marka daahir qaadashadu sideediba shatrul iimaani iimaanka barkiisa weeyaan iimaanka barkiisa iimaanka hoosha lagu ogyahay waa maxay waxa kamida iimaanka waxyaalaha uu qabto qofka haduu mu'min noqdo iimaan uu la yimaado wixii dambi hor uu u sameeyay oo dhan baa la dhaafaa wasaqaadkuna waa la mido waxa weeyaa xitaa dambi dhanbaya lagu dhaafin laakiin wixii saqaayir dhan wixii dambi yar oo dhan baa qofka ka hoobanaya markuu wasaqaato cidooyinkiisa gacmaha iyo waxa weeyaan ee lugaha farahan bay ka daadanayaan dambi yar oo dhan baan baaqi ku noqonaynin qofka markuu wasaqaato sida aan baa loogu cabirayo iimaanka barkiisa weeyaan ama waxa weeyaan iimaanka waxa loola jeedaa salaada loola jeedaa quraanka wuxuu rabbi ku sheegay suurat al-baqara wama kana Allahu liyudi'a iimaanakum ay liyudi'a salaatakum weeyaan ila ma aanin mid salaadiini dayaca ragii u dukan jiray baytul maqdis 17 bilood baa baytul maqdis loo dugtay madiina markii la tagay rag baa markaa dhintay baytul maqdis ilaa walba ku meel gaar bayado qibla toosan oo muslimiinta loogu talagalay oo weligeed ma ahayn yahuuda lagu qancinayay inamay diinta ay soo jeclaaday iyaga qibladoodii marka ragii sida ay rag baa dhintay xilliga inta lagu dukanay rabba waxay yiraahdeen baytul maqdis ragii u dugtay salaadoodii say noqon kartaa wama kana Allahu liyudi'a iimaanakum ay salaatakum wa yawaaka iimaan baa lagu cabiray markay sida noqoto ee iimaanka si toos salaad loogu cabiro waa baruno wasaqaadku waa salaada barkeedi hadaan wasaqaad jirin salaad ma ajirayo ma jiri maayo la budda waxa weeyaan waa miftaaxu salaati weeyaan wasaqaadku miftaaxul janna way inta lagu sheego marka salaada barkiisa weeyaan ama iimaanku barkiisa weeyaan والحمد لله إله اللقوم هذه ولا يدعو الحمد لله إرجع خفيف كبدن فضيت كان دبعته بدنين تملأ الميزان ميزان كآخرة يقوب ميزان كعسلين آية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
qofka maalinta miisaankiisa cuslaado xasanaadkiisa bato sayi'aadkiisa yaraada nin liibaanay wayaan marka alxamdulillaah wuxuu buuxiyaa miisaanka aakhiro walwasnu yawmaidin alxaq walismizaamaya meelo badan buu rabbi ku sheegay miisaanka inuu jiro miisaanku buuxiyaa وسبحان الله سبحان الله ليلادو والحمد لله سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تملأني ويبوحنايا ميزانك يبوحيان ميزانك ينودر نوم مغضي وحنوم مغضو هذا النبي قال نتصيه سبحان الله والحمد لله ميزان بيبوحين ميزان قدر أركي مينو والأما أو تملأ وحي بوحنايا وأجر وثواب حتى دي الغسيو ميلاد ديغتوضا لهن ما بين السماء والأرض عريا دول انت ودحيا ومسافة شنب قروسنا لوكلا صغن بلو معها السماوات والأرض كوا تبعي قارك بسيطة قرايا أما السماء والأرض سماوات عريال يدول اليال أما عريا دول انت سجران بمركة وبوحيا وأجرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله ويريو عربك آد بوفدود يا مدب بدنا خفيفتان على اللسان كنتارو قادي ماها ما أنت ولم بدل كرتا ودي كرتا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان ميزان كقيامنا عليس بدن ميزان كعسلين عيان حبيبتان إلى الرحمن إلى أكتي سنة أبل وجعل يهي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده قلن كورب بقول جرغف كادولي مادو حطت خطاياه الذنوب تيسودن بالله بين بوجري سبحانه صلى الله عليه وسلم قلن كدمنا سدا وكل صباحا ومساء الكارات كل جدي الى لي مادي كم انتهي مركز سبحان الله والحمد لله تملأني ويبوحنا يا ميزان كيبوحيان أو تملأ وما وحي يبوحن ما بين السماء والأرض عريا لنت يسجران والصلاة صلاتنا نور صلاة ونور افتين ويان قفك وحا ويان قبرك او افتين مساء سرادك او افتين مساء وحا إلى جنة وكتغو صلاة دالغوير هدان صلاة جري وحا ويفتين كان مجرو يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم نور كودي نور الإيمان ونور الصلاة وحوي أيها الرسولان أما المنافقين تاما قال سوما يوى مجدي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا واخبارك ما يسرات كيف الله مرايا والمؤمنين نوكادي ونسقوا نقتبس من نوركم افتين كيني وحن كشد القادنينا اذن كدينينا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا نور هل كان لغا يليما هل كان لغا تغا صلاه دالك ما هل كاسد كدكن ماي نقت وها ويان ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قدال او نقدو ادونيدي laga yimid way adoon loo noqonayaan jiray waa jees nuur halkaan baan kala nimid halka ka soo qaata fadriba baynahum bisur darbi baa lagu kala gooynay is arki maayama maxaa war badan ba keenay nasuga iyo nuurkiini baa rabnaayo aan iftiinkiina aan ku dayanayo waxa fadriba baynahum bisur lahu babun batinuhu fihi arrahma wa dhahiruhu min qibalihi al'adab waa la kala gooynaya marka salaadu waa nuur iftiin way qabrigay ku nuuri siraadkay ku nuuri aday ku nuurin wa sadaqaduna burhanun hujawayan wa burhano lagu garto qofka iimaankiisa hadan iimaan jirin qofka waxba bixin maayo laakiin qofka rumaysan yaboha ilaa ku sheegayo sadaqaadka laga bixinayo waxa way bixiya ilaana bedelkii buu idin gelinaya bixiyo adna bedelkii baa lagu siinaya qofka saaxiib ee bixinaya sadaqada ee saaxiibkuwa iimaankiisa bay sugaysaa xujo u tahay ama iyada u doodi doonto qiyaamo marka la tago waa xujo wasabru sabarkuna diyaa'un wa iftiin wayaan salaadu ka daran sabarka markaad eegto iyo salaada sabarkiiba baahad weyn la siiyay waad fahmi kartaa nuur iyo diyaa waxay isu yihiin نور يا ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا بربي سورة يونس
huwa aladii jacala ashamsa qoraxdu wuxuu rabbi ka dhigay diyaa'an waalqamara dayaxana nuur buu ka dhigay. labada iftiinkooda waad kala garan kartaa. qoraxdu xitaa indhaha miyaad u dhammayn kartaa? ma fiirin kartid, isagaa ka xoog badan oo ka nuur badan. sidaa marka qoraxda iyo waxa dayaxa ee nuurkooda u kala yahay bay sabarku iyo salaadana sidaa oo kale sabarka waxa weeye ka weyn. sababtoo sabarku wuxuu kulmiyeyo umuuro badan buu kulmiyey. xitaa salaada waa nooc min asabri weeye. haddaadan sabar qabin maadaa salaad dukan lahaa? salaad suuxa iyo qabow badan iyo kulayl badan iyo waxa weeye hurdo badan iyadoo ku hayso dulqaad iyo sabir qofka le unbaa soo kici kara. الصبر waxa way على الطاعة soomeen وصبر عن المعصية وصبر على البلاء warka inta sabarku u qaybsamo qayb noqonaya marka salaada. sabarku marka waa iftiin waa diyaa والقرآن قرآنكنا حجة لك وعليك. قرآنku waa laba siyaab. قرآنku waa حجة لك adoo ku doodaya waa abukaato loo yar wayaan oo ku dooda isaga ku badbaadinayo. سبحانه عليه الصلاة والسلام ونوشي اقرأوا الحديث كلا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن كأغريه قرآن كو إيمانا يا قيامة مركا الله تقول يساقوا الشفاعة قال تذكي قرآن كبرتي تذكي قرآن كأغرين جري تذكي قرآن ككودغم جري يساقوا ورقينا marka quraanku waa xujjatu laka goormu ku yahay markaad quraanka barato ama quraankii lagu dadaalay oo lagu baray oo aan dayicin aqrin buu ka rabaa quraanka illa daba joogo habeen iyo maalin la aqriyo raatiib qofka uu quraanka u yeesho. hadduu qofka uu dayico isagoo bartay xujjatu laka ma xujjatun calayka waya marka lafdhuun gashay buu noqonaya. xitaa qofka hadduu badbaadi lahaa quraanku san ka badbaadaynin. quraankii la bartay oo daba joog buu rabaa lagu daalay oo shalay lagu baray maanta aad dayacdo dambi buu kugu noqon. qaasatan dadka quraanka xifdiyay oo quraanka inuu dib aga lumud min al-kabaa'ir wa yadunub tawaabin buu kamid yahay adoo quraan xifdiyay haddana aad faraha ka sii bixiso. quraanka marka waxa weeye waa labo xujjatun laka aw calayka lafdhuun gashay buu ku noqono isagaaba ku dacwaysanaya rabbi qofka intuu i bartay buu i dayacay i aqrin waayay igu dhaqmi waayay xitaa haddaad badbaadi lahayd oodan ka badbaadi karin. kullu naasi dad dhammaantiisi dadkoo dhan yaqduu way wada kalahayaan nagoo dhan waa ka macaqalada la jooga waaga markuu baryaba qof waliba hawshiisii dadkoo dhan way wada kalahaan laakiin labay u qaybsameen oo dadku mid waxa weeyaan fabaa'icu nafsahu naftiisi buu iibinaya mid la arkaba uu kalahaya naftu iibiya laakiin nafta waxa weeyaan hal qof kale laga iibin maayo qofna ilaah buu ka iibsanaya. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة midna shaydaan buu ka iibin famuctiqu mid waxa weeye naar buu ka xoreynaya naftu naar ka xoreyn meel fiican buu geynaya masaajidadu geynaya cilmigu geynaya shaqo xalaal ilmihiisi u raasadu geynaya midna uu muubiqu naftu halaagaya meel xun buu geynaya tuuganimaya shaqo xun iyo ardaalnimaya kalaabiyo meel xun laga daba wareego waa ka qof waliba waaga markuu baryo waa la kala xaya kala weeyaan qof waliba laakiin qofna nafta meel fiican buu geyn midna meel xun buu geynaya. xadiiska waxa wariyay imaamu muslim xadiiska 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم حديث كأفر يلواتناد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أي يمني أها وصومر أبي ذر وصوت المامني صحابي جليل كأها أي حديث كإسقى وريي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكوريي نبي هذا الرابعة إسقى وحوريناي حديث كان هو حديث القدس ويا قال الله وديه كرتا أما فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى النبي وحو ربه سيكوريي حديث القدس وكلام الله لكن وحو القرآن كقد وياهي quraanka waxa weeyaan aqrintiisi waxa waa tacabud weeyaan waa la istulsaaray in quraanka la aqriyo hadii la dayaco waa lagu dambaabaya bali waliba raatibaad yeelato waxa weeye sida quraanku sida uu yahay isagu uma aha tan kale waxa weeyaan quraanku salaada ku dukan xadiisul qudsiga quraanka ee salaada ku dukan maysid laakiin waa kalaamullah sida quraanku mutawaatir hadana uu yahay ee warintiisi mutawaatirnimo ku yimid حديث القدسية وكذا دبنان كرا مركا وريلا أوكوها الله ويان نبي عليه الصلاة والسلام أبي ذر كوريي نبي كان فيما كي ويا يرويه كوريي عن ربي يسيب كوريي تبارك وتعالى ربي يسو خير كبنا أي سرين تبنا أنه ربي سبحانه وتعالى قال وحو ربي يري يا عبادي أدوم ذيدي أدومديدي أدوميسي والله الله يا إني أنيقا حرمت وانسك حرمي الظلم كان حرمي على نفسي أنيقا نفتيدي بانك حرمي إن وح ظلمو إن ظلمي سمايو نفتانك حرمي نفتيدي وجعلته وان يلي ظلمك بينكم بدينك دحديني محرما بانك يلي مثل حرمي فلا تظالموا دضوها ظلمنا اسماغنا اسقردريساننا الظلم ظلمات يوم القيامة ويا ظلمك هو مجدي قيامة مال انت مرك الله تقول قبرك هو مجدي صراطك هو مجدي ظلمك هو شيء وحا ويان شومئة في عنين مرك إلى وحو إلى نفتيدي وانك حرمي ظلمك أم بوح ظلمي ما يدين كان ظلمك دايا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما كان ربك وحويان بظلام للعبيد الضوابط من ظلمه قردر يستا دنبلان ونار وقيامي ربي وحمد ظلمه مركز ظلمك دحديني حرام من كي يلي واس ظلمنا وحويان نبي انتو قد بدر وجيدي بوحويري تضو ربي سبحانه وتعالى وحو حرم يدينك دحديني دماءكم وأموالكم وأعراضكم انتو بوالا حرمي وحاو يديق إناد اسكا قشان مالاد اسكا دعدان شرفتين هذا وحميلاد كا دعدان قبقف كالو وحكا شيقو كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا إن بدن بالنبي ترتريي أعراضكم وأموالكم وحاوية ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا أبو الصبان ويري قد بدر ويا أمدو لنمركا وجيدنا ربي وحوري إني حرمت ظلمي كان اسكا حرمي وعلى نفسي نفتيدي بان كحرمي وهو ما ظلمي وجعلت وحن يلي بينكم بدين كدحدين ظلمي محرما مثل حارم تمييو فلا تظالموا دذوها اس ظلمنا هاي اسكردريساننا هاي اسماغنا
يا عبادي أدومديدي كلكم دمانتيني قدقيني سدو ودنتين وعاتين ضال كوالنصن إلا من قف مهاني هديتو أنيقب عن هنونيي فاستادوني هنون كي قد البو أنا هديكم والإذن هنونينا أمان إذن هنونيي هنون كالله وطو كانوا دون ربي هنونيا waxa idinkoo dhan baa wada lunsano hanuunka iga doona anaan idin siiye ya cibaadi adoomadaydi kullukum dhamaantiini jaa'icun kuwa gaajaysan kuwa baahan baatiin ya ayuha annaasu antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid illa man ad'amtuhu qofan quudiyay maahane fastad'imuni iga quud dalba ana ud'imukum waan idin quudinaya amaan idin quudiye يا عبادي أدومديدي كلكم دمانتيني عارن كوا قابن باتين كوا درلاء إلا من كسوتو مد كان در أحري ماهاني قفان در سيي ماهاني الآن بمر الشيء فاستقسوني إغدر دلبويا أقسكم أنا در كان إذن حرايا دربا لذين سيرايا وحويا دنتاضو دن حتى وحل هذا عقل كاغي عصبداد u doonto ilaahu weydiiso waa ku siinaya wuxuu dhan way ka kala maqan yihiin wax alla waxa doonto ilaahu weydiiso cibaadadu iyo baryada iyo weydiintuna waxa weeye waa cibaado الدعاء هو العبادة أو مخ العبادة بصوبنو صلى الله عليه وسلم وربي نوت الماما يقف بدنان تنضى هبيني يا مالين بانو قفنا يا عبادي يا دومديدي إنكم بدينك تخطئون واتقفيسان كس يا ماك بدن بأقشان بالليل هبين والنهار يا مالين باتقفيسان هبين باتقفتان مالين باتقفتان لكن وحا ويا وخير الخطائين التوابون كوقف وحا وخير بدن بالري كو توبت كين كبدن كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وانا اغفر الذنوب انا ذنوب تندافا جميعا دمانتي ذنوب تو دم بان دافايو فاستغفروني ذنب دافي ويديستا اغفر لكم تنبغيني بان دافايا يا عبادي ادومديدي صدو ودنتين انكم بدينك لن تبلغوا غاري ميسان ضري انيغا دبكيغا فتضروني آدي دبتان إلا بانو دبينا يا ويرر بانو كقادينا يا دباتان أجينا يا عنقوتين يا مجرتو ولن تبلغوا قاري ميسان نفعي واحترك كيف تنفعون هذا وحي ترتان حداد في عنات النفط هذه بعض في عنات يداد حماته والله مدو إلى ندبي كريم ميسان وإحنا أتري أنت وناق بول نوسم أنت وحان أحول نو وناقة أما أنت وحا ويانو سينو مي وناقيني قاري ماي حميني قاري ماي يا عبادي أدومديدي لو أن أولكم كيني هوري الدنيا هوري آدم ويان وآخركم كيني دنبي الدنيا دمات كذي كدلان دونو وإنسكم إنسكيني بني آدم كيني وجنكم يجني كيني جني قودن كانوا هدي هداد هاتان كانوا هدي هذان قدي قودي على أتقى قلب رجل من قلبه سي وعبسي بدن واحد ننكاسو مثكليا منكم بدين كيدين كمدا أنا أخشاكم لله وأتقاكم له بصوبنويري تذكر هذا النبي محمد وكلاي وذا النقضان ما زاد ذلك في ملكي شيئا بقرني مدى وحبه كردين ماي قف كيف فعنا هذا يسوي سوف فعنا هذا يوم من عمل صالحا فلنفسه وحالمدا يا عبادي أدوم ذيدي لو أن أولكم كيني وري آدم وآخركم كيني الدنبي الدنيا دمات كذي كردلان دونو وإنسكم من سجيني وجنكم يجنجيني كانوا هذي هذا على أفجر قلب رجل من قلبه سمتك وفاجر ماذا بدن كفرعون وكله أنا ربكم الأعلى كيل أركب فرعون بنقضي منكم بدين كيدين كمدا ما نقص نسقى من ما يودم ما ذلك أرنك من ملكي بقرن مدى إذا شيء أنا هذا يراته كحماذا اللي فيه سبوه حماذا يا عبادي أدو مدى لو أن أولكم كيني وري وآخركم كيني دنبي وإنسكم بني آدم كيني وجنكم يجن كيني قاموا هذا يستاغانوا في صعيد بنان واحد مثكليا فسألوني أي مركا مثل أركبي ويديسو دنتي سي حاجة دي سي أنا فأقضيت عن سيو كل واحد كيل أركب مسألة وحوية ويديسي قف لي دنتي سيانو بوحيو ما نقص دمي ما يذلك أرنك مما عندي أكتدي وحادي استورد ذي بنجية ذي وحويا خزائن تذي وحكجر وحبك ناقص المايان حدا يودعضو إلا كما سيدي أوكله ينقص المخيط عربد باي أدنتو إذا أدخل البحر هذه بدل قلي عربد غاضو بدقلي محي صور دنتي محي بدك دنتي وحبك مد من حدا يودعضو انت ويديك وحبك دمي ماي يا عبادي أدوم ذي إنما إنكر ماها هي كهذا الذين شاقيو
أعمالكم أعماشيني ويا أعماشيني ويا واحد اللتري أحصيها لكم والذين كوايا قف اللي بوحوا سمايو خيري يشرب ما أنت الله كوايا مال بالله دقايا برينا وحوي فرق الله وشوي ثم كجدال أوفيكم ولا أوفينا إياها قف اللي بوحوا سماي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا يربا مال أنت فمن وجد قفكي هلا خيرا خير قفكي لكل مالنتا فليحمد الله إلهكم هذه على توفيقه يا كوا فجي مساعد كانت فديسته خير كانت قسمته الحمد لله ومن وجد غير ذلك وحن خيرهم قفكي هلا وشره فلا يلومن يوسن دغال يوسن اذين الا نفسه نفتي سمان اضا اسلمي قف كلبها اذن رواه مسلم والله